Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum. Hanti in la kasbado waxay u baahan tahay xirfad, aqoon iyo howl adag. Qof walba rabo inuu gaaro guul dhaqaale, waxaa muhiim ah inuu fahmo shuruucda lagama maarmaanka u ah kasbashada iyo ilaalinta hantida. Muuqaalkan waxaan kugu sharxi doonaa 7 shuruuc oo muhiim ah oo ka caawin kara inaad hanti yeelato. Sharciga koobaad: yeelo xirfad. Sharciga ugu horeeya ee hantida lagu kasbado waa inaad noqoto qof xirfad leh oo ku xeeldheer xirfadaas. Xirfadaada shaqo waxay kuu horseedi doontaa inaad shaqooyin fiican hesho ama inaad ganacsi ku gaara bilowdo. Tani waa talaabada ugu horeysa ee lagama maarmaanka ah ee aad ku bilaabi karto safarkaaga hanti kasbashada. Sharciga labaad: maamulidda kharashaadka ku soo gala. Kharashaadka ku soo gala waa inaad si saxan u maamushaa. Waxaa muhiim ah inaad samayso miisaaniyad iyo qorshe dhaqaale. Baro sida lacagta loo keediyo loona maalgashto. Ka fogow deynta aan daruuriga ahayn, sababtoo ah shaqsiga deynta u qaata inuu waxyaabo malayacni ah ku sameeyo ma laga yaabo inuu horumar dhaqaale gaaro. Sharciga saddexaad: maalgashi caqli ku salaysan. Mid ka mid ah shuruucda ugu muhiimsan ee hantida lagu kasbado waa inaad lacagtaada si caqligal ah maalgashi ugu samaysataa. Fursadaha maalgashiga sida hantida maguurtada ah, suuqa saamiyada iyo ganacsiyada yaryar waxay ku siin karaan faa'iidooyin weyn mustaqbalka fog. Maalgelinta caqliga ku salaysan waxay ku xiran tahay cilmi baaris qoto dheer iyo faham xeel dheer oo ku saabsan ganacsiga aad gelayso. Sharciga afaraad: iskaashi wanaagsan. Guusha dhaqaale badanaa waxay ku timaadaa iskaashi iyo xiriir wanaagsan oo aad la leedahay dadka kale. Iskaashi la sameey dadka aad ku kalsoon tahay oo leh aragtiyo wanaagsan. Wada shaqaynta dadka wanaagsan ayaa kuu horseedi karta fursado ganacsi oo cusub iyo inaad ka faa'iidaysato aqoonta iyo khibradda dadka kale. Sharciga shanaad: noqo tartama dhab ah. Ganacsiga iyo maalgashiga waa tartan. Waa inaad noqotaa qof tartan badan oo had iyo jeer raadiya fursadaha cusub si ugu faa'iidaysto. Ku fikir sidaad ugu duwnaan lahayd dadka kale oo aad fursado cusub u abuuri lahayd. Sharciga lixaad: la saaxiib dadka khibradda leh. Waxaa muhiim ah inaad hesho talooyin iyo hanuunin dadka aqoonta u leh ganacsiga aad rabto inaad maalgashato. La tasho dadka khibradda leh sida la taliyaasha maaliyadda iyo kuwa guulaystay oo hore u soo maray waddada aad hadda adiga marayso. Dadkaas taladooda waxay kaa caawin doontaa inaad ka fogaato khaladaadka iyo inaad go'aano wanaagsan gaarto. Sharciga toddobaad: samir iyo dadaal. Sharciga ugu dambeeya ee hantida lagu kasbado waa samirka iyo dadaalka joogtada ah. Guusha dhaqaale kuma timaado habeen iyo maalin. Waa inaad u diyaar garowdaa inaad waqti dheer ku bixiso, aadna la timaada dadaal iyo go'aano adag si aad u gaarto yoolkaaga. Samirka iyo dulqaadka waa furayaasha guusha. Hantida waa la kasban karaa haddii aad si qorshaysan u dhaqanto oo aad raacdo shuruucda sare ku xusan ee maaliyadda iyo maalgashiga dhaqaale. Ku dadaal inaad wax barato, horumariso xirfadahaaga, maalgashi caqli iyo cilmi ku salaysan aad samayso, oo aad iskaashi wanaagsan la samayso dadka wanaagsan ee khibradda leh. Xusuusnow mar waliba in samirka iyo dadaalka joogtada ah ay kuu horseedi doonaan guul waarta. Asalaamu calaykum.